ku siduu yahay codkayga ma maqlaysaan maxamed axmed staaf ciyaal suuqnimada waa idin salaamay iisoo bata waa idin baryaayaaye oo ii sheer gareeya aniga youtuber ma ihi youtube kama qaraabto tiktok ma lihi snapchat iyo facebook ood igu ogtihiin aan leeyahay bis marka bliis ii sheer gareeya 357 aan ujeedaa bliis ii sheer gareeya ii sheer gareeya reer america waxaa u malaynaa inay layd u tahay reer america waxay u tahay layd annaga 4 oo 9 ay noo tahay caawa anigaa casho lahaa casho sharafaan ka imaaday aan kusoo daahay gabdho walaalaha ay ii sameeyeen iyo sagootin maadaama aan safar ahay soo dhawaada oo ii sheer gareeya gacalayaal ii sheer gareeya ii sheer gareeya ii sheer gareeya dad badanaa ujeedaa oon garanaayo walaalkay qaasina ujeedaa neero qaasin cabdulle xuseen isku laasnaymaan naha walaalkay ii sheer gareeya gacalayaal mustafa sheekh cumar aa ku salaamay wiilkayga adeerkiis kulligiin waa idin salaamayaa 1000 ii gaara 1000 mar haddaad gaartaan ood siina sheer garaysaan waa ii sheeg abo samsama isoo wacayso cabdirashiid samsama isoo wacayso iyo wacbo samsama iga soo dhexgalowse walaalay mise kay fiirsan kartaa samsamey logo qabashada iga dhaaf logo qabashada aamus ay nafta iga qaaday waa ii aamusine ii wacbo speaker ka saar idib speaker ka saar idib samsam hee telefonkaysa u qabanaya waxaan ku jira life abaayo oo waxaa u malaynaya lifeka inaa iga soo aragtood leedahay maxaa u hadlaysaa arrintii kale arti inaa igala hadasho miya ha abaay ayaan gacala life yaraan ku jiraaya waxaan ku jirayaa less than 10 minutes ma ii dul qaadan kartaa iga seexan waa arrin kale iisoo waceysa waa iska saas walaalahay iyo hooyaday iyo ma jecla inaan hadlo saasay lugaha igu dhegan yihiin laakiin dhib malaha waa qabsooma mar dhawanaaba dan isaga daalayaba ilaa dadka waxaan la dhiil garaynayna waa soomaali maxamed mogt 1000 aan rabaa bis wax yaraa iga haray 1000 mar hadduu ii gaaro ayna una isgaargaarsiiyeysin 10 daqiiqaan rabaa inaan hadlo muhiimadda un ka hadlo ilaa hadal lama saarnaada mogt waa idin baryaa gacalayaal wixii aan soo ogaaday iyo akhbaaraadkii aan ku maqnaa ilaa anigu haddaan hawl bilaabo inaan dhammaystiraayo waa ogtihiin haddaan mar wax ka hadlo inaan soo dhammaystiraayo waa ogtihiin marka qardho iyo boosaaso dadka jooga ilaahay ha xifdiyo inta samaha jecel ee qardho iyo boosaaso igala soo xiriirtay ilaahay ha xifdiyo uma malaynaayo inay cid dulminaayaan uma malaynaayo inay been ii soo sheegayaan laakiin investigation fiican aan sameeyey wixii dembiya allah naga cafiyo wixii saxahna ilaahay hana waafajiyo marka koobaad way maqlaysaan soo maahan 993 reer qardhi reer boosaaso 1k waa ujeedaa maasha allah 1k igu filan idinkaa isgaarsiiyaha dhib ma lahan reer qardhi reer boosaaso
ilaahay noo keen xifdiyo inta samaha jecel oo ila soo xiriirtay snapchat-ka iyo facebook-gaba igala soo xiriirtay dadaan is ogeyn oo aanan ma aragtay aan is oqoonin oo kala duwan maadaama day qof kasta waddanka uu ku nool yahay ama magaalada markaas uu joogo asaa kaaga warroon wixii ka socda diyaaru mihi kaaminta caaya inaan ka jawaabo inta samaha jecelaa igu filan inta xaqdarrada u helinayso ama dulmiga jecel ama musuq maasuqa inay u heliso jecel kaamintiyadoodan ka gartaa waa dadkii musuq maasuqa qof haddii musuq maasuq iyadoo laga hadlaayo negative soo qoro waa dadka musuq maasuqa qofaa musuq maasuq jeclayn oo ilaahay ka cabsahayo xaqdarro aan rabin ma kuma soo cayhayo negativena kaama soo qoraayo okay walaalahayo reer soomaaliyey reer soomaaliya dhan horta waa salaamaya I think hadda ayagaa u badan iyo reer africa oo dhan waa salaama gacalayaal reer america waa hurdaan saa umalayhayo umur ramzi soo dhowo habramiski waxaa idin leeyahay akhbaaraadka inta aan helaayo waxaan rabaa inaan dee iska soo afjaro arrintan mogto muhiimadayda ugu weyna waxay tahay wixii gudbay way tageen mogto wixii gudbay way tageene hagocana hana soo xusuusan yah wixii gudbay waa tageen wixii na maray waa na mareen waxba lagama qaban karo lamana soo celi karo laakiin muhiimadda ugu weynaan u hadlaayo oo aan rabo inuu codkaygu meel dheer gaaro waa hadda waxa socdo aan qabanno aan saa u qabanno aan joojino aan ka adkaano gacalayaal akhbaaraadka aan helaayo oo ku saabsan gabadhii ladan dad badan aa ila soo xiriiray waxyaabo badan oo runtii aan aniga markii hore aan maskaxdayda kusoo dhicin laakiin dadku ii iftiimiyeen oo wax badan ka jiraan ayaa layla wadaagay shalay markay soo gashay miidiyaha oo videogeeda la sheergaraynayay dadkis waxay horta gabadhan waxay wacatay tv badan iyo wariyaal badan oo kala duwana soo tabiyey xala marka anigu indhahaygu waxay ku dhaceen universal tv marna snapchat-ka afkan ku dhufto waxaan iri universal oo soo dhigaayana waa arkee ma la isla shaqaysto haya hadalkaas universal waa idin dhahay hadduu gaf ahaa ka raalli ahaada sababta oo ah walaalkay deeq darajo oo universal tv north america u jooga ayaan galabta ismaqalay waxaan ku idhi deeqow universal waa soo sheer gareeyeen gabadhaas anaana arkay pagekooda facebooka aan ka arkay weliba ayagoo qoraal kusoo qoray ladan oo ah gabar soomaaliyeed oo dhibaato hadda kahor kusoo dhacday oo ummadda soomaaliyeed u kaceen oo foundation ururkan foundationka furatay maadaama ay dareemayso ay dareemi karto dhibaatada iyo duruufta ayada soo martay haddana diyaar u ah inay dad caawiso intaasay ciwaan uga dhigeen marka anigu xalay maraan galay universal deeq markaan u sheegayna saakay galabtay wuxuu igu yidhi farxiyoy janaallo badan iyo tv badan ay gabadhu wacatay oo soo dhigaya universal keliya ma ah qofkuna markuu yidhaahdo barnaamijaan wataa wuxuu casumanaa tv badan iyo wariyaal badan okay tv iyo wariye waa la kala qaadaa tv-gu waxaa laga yaabaa inuu daacad yahay oo honest yahay dad baa iska leh wariyaashuna waa shaqaalayaal haddaba universal waxay ka mid tahay dadkii ay wacatay barnaamijkan usoo tabiyey tv-yadii la wacay universal ka mid ahayd saa darteed universal ataa gaara kuma samaynayno mana dhaleecaynayno waxay la mid tahay wariyaasha iyo tv-yada meeshaa ka qayb galay okay akhbaaraadka isoo gaaraya marka waxaa jiro waa lay soo qoray waa haayaa magacyadooda waxaa jiro inay gabadhaasu hadda ay la shaqayso oo isla shaqeeyaan rag badan oo wariyaal ah wariyaal badan ay la shaqayso oo ay arrintan la barmood garaynayaan ayaa jirto inay percentage ku leeyihiin waxa ay soo hesho cajiib dadkaa wariyaasha ah raggaa wariyaasha magacyadooda waa lay sheegay laakiin wallahi inta kama sheegayo because inta aad wax ma aragtay dadi karta waa la dadaa hebelaa ku jiro hebelaa ku jira macna ima samaynayso laakiin hebelka ku jiro hadduuba hebelada ku jira ee wariyaasha gabadhaa la shaqaynaya oo weliba sida lai sheegay daacadnimo ah ula shaqaynayno ayagu aanan dad ma aragtay ay gaadaysa aan ahayn dad ay is og yihiin ay yihiin hadday jirto arrintaasu
anigu magaca anoon sheegin wariye magaciisa anoon sheegin miidiyaha laga arkaa facebooka laga arkaa tvda laga arkaa wariyihii gabadha arrinteeda soo sheer gareeyo anoon magaciisa sheegin asaa is sheega very simple marka iga raalaada marka waxa aan soo ogaaday oo hadda la ii soo sheego igu soo kordhay inay wariyaal jiraan gabadha la shaqeysto oo percentage kule wixii ay soo dhiciso oo dad ka soo qaado arrintaas waa jirtaa waxaa kuu soo haray waxaan helayaa xog ah dad jooga Qardho iyo Boosaaso ii soo qoreen in ay gabadhaas lacagtii 190,000 oo dollar gaaraysay u aruurinay gabadhaas maanta inaysan lacagtii waxba ka haysan wixii ay dhul gelisay wixii ay baabuur ku gadatay bay hanti ahaan ka haysataa laakiin lacag ay haysato ma jirtaa leeydi waa dadku sida ii sheegayaan lacag lagu badnaa oo dad la qaybsanayeen oo laga dambeeyay oo markii horeba markii ugu horeysaba nala ku gaaday ayada wajigeeda kaliya iyo oohinteedii iyo mashruuc la soo degsaday oo jiray buu ahaa inay waa xanuunsanahay ummadda Soomaaliyeed intaasoo cuduraan qaba 3 mar maalintii dhaca waa jiranahay inay inta tiraahdo ummaddu hal mar wada kacaan soonna waa ahayd soonka dadku aad isnaqada ula baxaan waliba 10kii dambe ay ahayd marka mashruucaas horay waa noo maray way dhacdaa waxaan ummadda Soomaaliyeed ka raali gelinayaa oo aan aniga inta ila midka ahay arrintan ka qayb qaatay aan qaladkan waa qaadanaynaa waliba inkastoo qaladka aan anigu waa qaadanaynaa waxaan hadda idin leeyahay maadaama dadkii u ololeeyay aan ku jirno lacagtaasna dadka ma aragtay diray yiri ama waxaan ka soo qaadi karno gacmaheena aan ku aruurino aan arrinta aan qayb weyn ka qaadanay still qaladka waa qaadanaynaa aniga iyo dadka ku jira arrintaas oo dhan America ila joogay aniga sida Maxamed Barstamool oo kale iyo aniga iyo okay laakiin ummadda Soomaaliyeed waxay ii qiraysaa oo marqaati ka yihiin sida aad gabadha uga naxdeen oo aad hadalkeedu run ugu malayseen oo qof walba maadaama 10kii dambe soonka 2020 sanadku markuu ahaa ay ahayd saad uga wada naxdeen si la mid ah uga naxnay marka waxaan idin dheernaha oo kaliya inaan ololahi galnay lacagta inaan aruurino oo idinka soo qaadno laakiin isku mid aan ka nahay dareenka ah inay gabadhaas dhiban tahay oo qof walaalaha caawin u baahan ay tahay dareenka idinka aad ma aragtay dareenteen iyo dareenka aad ka qaadateen iyo sa uga naxdeen isku mid aan ka nahay laakiin aruurintii aan idin dheernahay maadaama lacagtaas ay naftirkeen iyo magiciide in dad la yaqaano oo la aaminayo aan nahay okay way dhacday muhiimadu ma aha 190,000 oo dollar gabadha la geliyay oo waliba akhbaar kala idin sii haya oo waxa anagu lacagtii la aruuriyay oo ayadu ay hesho la sheegay waagaas aan ahayno lacaga hoos xataa ay u qaadatay oo dad madaxu siiyeen dadka madaxda ah dad kamid ah waa aqaana waa dad aan ma aragtay aan easy tahay xataa inaan la xiriiro oo aan raadiyo magacooda halkan kama sheegay madaxdaas markay daawato isgaran doonaan gabadhii Qardho ee ladan ee 2020 dhibaatada soo sheegatay in dad madaxa lagu xiray xataa oo lacag fara badan gacanta ka saareen qaarkoodna ay xataa $1 bil kasto inay ka qaadato xafiis meel loo saaray inta ay saaka dhacayso oo waxa ma aragta hawshaadu ila madaxdu waxa ma sii daba galaan dadka madaxda ah qofkan dhibanaha markii loo geeyo wixii marka uu tari karo siiha wixii ballan qaado u sameyn karo ma mushaar meel u saari karo ka go'o qaada dhaha laakiin hoosay wuxuu ma ogaa karaan marka dad xataa waxa jira madaxa oo bil $1 lacag la iigu cayimay inay bil kasta xafiis ka qaadato qof madaxa Soomaaliya kamid ah okay uma baahna in halkan ka sheego haduu daawanayno isfahmaa dib ma lahan waa honesty waa daacad anaguna la mid yahay okay waxaan rabaa hal mar marka ina muhiimadu waa idinku celcelinaa muhiimadu ma aha lacagtii horay u baxday dadka ma aragtay ii sheeg iswata gabadhaas soo diray heshiiska ku wada ahaa in Soomaaliya lacag laga qaado dhibaato inta loo sheegto lacagtaas ay qaateen waa tagtay ma la soo celi karo ayadina waliba waxay idin sheegaa gabadhaas inay lacagta waxba ka haysan sida dadka reer Boosaaso reer Qardho ii sheegayaan wixii dhul ay gelisay wixii baabuur ay ku gadatay wixii guri ay ku gadatay uma ahani okay taasu ka daba tag ma laho de lama soo qaban karo muhiimada ugu weyn la qaylinayaan idin leeyahay waxaan bilaabay inaan dhameystiraan jecelahay Ladan Foundation aan rabaa inuu $1 dambe oo qof Soomaaliya ka soo baxay oo ku dhicin muhiimadaydu waa intaas muhiimadu ugu weyn dhagiina fura waa in Ladan Foundation oo $1 dambe oo qof Soomaaliya jeebkiisa ka soo baxay oo ku dhicin caana daatay dabadood la qabay okay dadka madaxda ahana raadiha dib ma lahan
runtan ana u sheegaa because lacagta ay gabadhaas siiyeen waa tagtatii hore ta hadda u socoto oo la sheegaa biilahaan u siiyaan abaaraa jira dad xanuunsanaa jiro oo baahan ilmo yar yar oo agoonahaa jiro kuwaasaa uga baahan waa inay siiyaan kuwaas xalamaana laba habeen ka hor xalana waa idiin sheegaya gabar miskiina oo danyar ah oo naasku fashfashay oo kansar uga yaallo aa lay soo diro snaabkayga soo dhigay taas soo uma baahna soo ma mudna soo in dhakhtar loola carara emergency ma aha soo in qof walba wuxuu awoodo siiya xaq uma lahan taasoo kale oo miiran abaarahoo kale aa nooga baahan wax walba meesha ay loogu talagalay in lagu baxshaa fiican qaar xal ii soo qoraayeen dowladda Soomaaliya ka raadso xil ah wasiirka musuqmaasuq la dirirka haddayba suurtageli lahayd oo aan baxil iyo waxaas rabi lahaaba ama aan jaanis ku heli lahaa inaan xil qabto musuqmaasuq la dirira Soomaaliya oo dhan futadaan isugu xir lahaa waa toosin lahaa wallahi waa toosin lahaa hal xabo lama dhadhamiyeen hal xabo lama dhadhamiyeen marka xil ma raba anugu xil ma rabo waxaan kaloo Soomaaliya idiin sheegayaa Soomaali waa dad madax adag qofku markuu fanaan yahay ama uu fan ku jiro waxay jecel yihiin ama ka dhaadhacsan dhaqan ahaan inuu dulli yahay xaaraan cun yahay waxba lagu aamini karin fanaaniintu sida ummadda Soomaaliyeed loo dhalay qof walba gurigu ka yimid oo ku soo koray sida dadku u kala xalaalsan yihiin ay u kala xalaalsan yihiin saa adugu ma aragtay aad isugu malaysana qof fiican tahay oo guri fiican aad ka timidaa fanaan kastana guri fiican iyo hooyo fiican iyo aba fiican soo dhaleen shakhsiyadda iyo qofku businessku ku jirana waa kala gaar aaminaadda waxa la yiraahdo iyo nadiifkana waa loo dhashaa intaasoo sanaan dad aniga lacag u aruurinayo u tabarucaayay isma amaanayo marqaatiyaalan haystaa hadda ka hor lacag aan soo aruuriyo sadaqo oo aan dad albaabada ku soo gargaraacay 2016kii boorso ani aan wata lacag qardaadiic oo igu jirtay oo ilaa $25 oo laakiin $5 iyo dollar iyo ahayd 10 iyo oo igu dhixistaan lacag sadaqa ku dhexdaadshay lacagtii aan marka intay ahayd exactly isaga ka qasanta lacagta aniga tii aan lahaa waa xusuusta hooyadayaan la jooga soonay ahayd waxaan ku hooyo lacagtaydan lacagta ku dhexdaadshay markaas ay igu tii ma xusuusta intay ahayd ma aqaan iga dhaafan ku sadaqa ii tay waa ku gambiyay sidii aan lacagta isugu wada daray oon ku diray maadaama cadadka lacagta aan meesha igu jirtay inay $25 ahayd inay 20 ahayd inay 23 ahayd aan kala garan karin oo ku dhex shubay horta xalaalnimo heerkaas aan ka gaaray waxaan xusuustaa maalin aan isheeg aan ka doonayay xaafad Savage la yiraahdo gabar igu tiri $100 iga soo doon gabar habartay fartu Yusuf ludo habar iga soo doon $100 sadaqada wax ku darsanaa gaas aan ku suganayay marka ee gaariga wiil la socda wuxuu igu yiri lacag sadaqada aawada haday soo qaaday waa uga soo kartaa moogta saxan ku yiri ma rabo hada anoo fanaanada aan waxaan diidaa inaan lacagta sadaqada gaas uga subto dadna waxay fadwoodeen sadaqa markaad aruurisid inaad percentage ku yeelan karto percentage inaad ka qaadan karto anna inaan gaas uga subto aan diidanahay sometimes markaan xawilaayo lacagta jeebkayga xawlaada ka bixin jiray oo ilaahay ugu ogyahay xawlaad dadka xawlaada marqaati iyo xawlaadayaasha beledkan way yaqaanaan marqaati iyo marka horta hore diin ama sheego ama wadaadnimo ku soo gabo wadaad fiican way jiraan dad diinta u adeega way jiraan dad dadka u naxariista way jiraan dad xalaalo waa buuxan laakiin inta xun ee musuqmaasuqa ku adeegata ee ilaahay meelay ka gali doonaan ayaga yaqaanay waxaa jira inta xun ee ma aragtay dadka niyadda ka dilay ee aaminaada dadka ka saaray oo ummadda ku badan social media Soomaaliya isticmaashaan social media dhanka fiican oo isticmaashaan Allah idin tuso ina aragtidiinu dheeraata Allah idin tuso waxa la arkay anigu horaan u arkay laakiin waxay dad badan hadda ila arkeen ilma 2019 lagu soo qaraabtay oo lacag lagu aruursaday alla arka 2021 isla ilmihi asagoo hadana lagu tuugsahayo waxay kamid tahay waxyaabaha lagu qaraabta hadda okay haddaad aragtaan mid kale waa idinkaga digaa haddaad aragtaan qof ama waayeel ha ahaado ama qof dhalinyaro ha ahaadee qof inta xanuunsaday mariila ama nabar weyn ku yaalo oo ama isha iyo agteeda uga soo baxay ku faafay ama ma aragtay silicsan haddaad aragtaan oo la soo dhigo qofkaasu markuu qabashada lahaay ee xanuunku ku cusbaa hadduu dad leeyahay ama dad ilaahay ka baqaayo uu la joogo intuu qabashada lahaay ay soo dhigi lahaayeen
waxaa la sugaa qofku marka uu dhimar rabo lagu soo dhigaa oo dhimar rabo la soo dhigaa waa naxay marka allah qofkaan ma laga joogi karo lama fiirsan karo lacagtii la diraa qofku waa dhimooya ogowya macnaha loo soo dhigay qofkan oo asagu marka qabashada lahayd loo soo dhigi waayay laakiin loo soo dhigay marka uu dhimar rabo qofkan dan lagama laha lacag lagu helaa la rabaa taasuna way jirtaa iska ilaaliya waa dhima kariyaalle aniga haddaan arko qof mariila oo lacag lagu raadiyahay shilin kuma darsanaayo waa dhima kariyaalle no laakiin qof qabasho leh sida hadda gabadha naasku ka soo baxay kansarka weliba wuu faafay weliba ayada xataa waa fashfashta meesha oo qof qabasho leh cudurkiisa haddaan arko waa xoogan saaraya in la caawiyo okay waxyaabo badan ay ka jira Soomaali dhexdeeda dadkii xaaraan cunay wada noqdeen dad badan waxa iga qaylisiinaya dadka noo baahan aan caawino waa weliba insha Allah waxaan rabaa inay dad badan oo aqliga u saaxiiba meeshan u mari lahayn iyo saan u hagaajin lahayn ay igala shaqeeyaan waxaan rabaa inaan joojino Soomaaliyeed qof dambe oo media la soo dhigo lacag loo aruuriyo dhahayo in lacag gacanta loogu shubo inaan totally joojino ilaahu ma lacag saa'id xataa ku bixino oo aan dad ma aragto u xil saarno dantooda uga soo tago dhan war lacagta ku qaado oo haddaad ajir rabin oo lacag leer rabto adigu intaas aan ku offer garaynay aamina tahay intaas aan anagu ku siinay qaado intaan dad aamina raadino laakiin qofkaas lacagtiisa inta ku dhiibno gacanta qabo meeshaas geey wixii markii isbitaalka maxaa ku baxaa la yiraahdaa intaas ka bixi noona soo duub in hawl adag oo dheer la gala waayo hadii ka bacdo la caawinayo waa inaan shaqada isku badino waaba haddaan samaynayno inkastoo anigu waa soo shiday anigu mar dhawaan bareegan jiidaha waa soo shiday aniga because 30 milyan oo Soomaaliya oo ma aragtay ii sheeg wada aamusan in farxiin kaba yara kaligeed ka qayliso oo war xaq loo diriro war la iska dhaafo dambiga war dadka hal la caawiyo u baahan war kuwan caawimaad u baahan in iska ilaaliyo inaan kaligay dhaho oo ii wada aamustaan ma shaqayhaysa waxa Soomaaliya iska dhigay waay Soomaaliya waxay ugu baabaaday waa Soomaali iyo keerlaysnimadeeda iyo indhaha inay wax ka fiiriyaan xaa iga gal qof walba oo yiraahdo way fahamteen Soomaaliya muhiimadda ugu weyn oo walaalayaal idin sheegay akhbaaraadka aan soo helay waxa waay in dad madax ah wali ay lacag ay meel ugu qoreen waagi oo biilaha $1,000 gaarayso $1,000 camal ah inay qaadato qoftaas wali u socoto waa soo xilaa albaabkaasna maadaama shakhsiga la sheegay lacagtaas bixiyo waa soo xilaa waa shakhsi aan wici karo waa helaa madaxda Soomaalida ma aniga weyha sheekhadan u baahda xataa waa helaa contactigiis runta u sheegay inta waa iga daawaha madaxda qofkaas $1,000 bixiyana waa ka soo xilaa foundation kan saan ku xiran yahay ya waa idin salaamaya waa idin jeclahay saasa noo ballana meesha wax ku bixinaysaan ogaada gabadha aan idin sheegaya kansarku ku dhacay ee naaska xanuunayayna waa idin soo dhigay habeen hore dadka gabdhaha reer Snapchat-ka iyo waa wada arkeen way wada qaracmeen gabdhihii marka lambar ku qornay waa gabar iyo lambar ayada naftirkeeda waa sii daba galaynaa waa raadiha waa idin soo dhigaa wax ku soo dhaqaysta insha Allah ilaa wax laga seexan karo ma aanu gabar naas kansarka ahay laakiin wixii hadda ka dambeeyo haddaan aniga iga weydaan anoo qof caawinayo bacdayda badatay bacaan qaaday paranoid ay ugu dhacday marka waa idin salaama in samaha jecel kor Allah ka dhigo ladan foundation ka fogaada oo iska ilaaliya reer Boosaas thank you so much reer Qardho thank you so much isi sharaf igu noolaada dadkeena tabaalaysan ee runta u xanuunsan aan caawino dad badan waxaan arkay kuwa musuqmaasuq jecel waay ii soo qoraayo qofka Ilaahay wuxuu u qoray oo Soomaali Ilaahay uga soo qaaday maxaa uga hor istaagaysaa war Soomaali baahida jirta ummadda Soomaaliyeed say u tabaalaysan tahay baahida jirta waad ogtihiin ya shilinka been lagaaga qaadana waa ka xanuun badan yahay wax kasta shilinka been lagaaga qaado wax kasta uu ka xanuun badan yahay waxaan diidan anigu waa beenta ee qof ka bilaadanka Ilaahay wuxuu u qoray kama hor istaagay aniga ladana soo hartay ladanay walaalay macaani hadaa aaminsantahay inaan ku dulminaayo aniga adiga Ilaahay aan noo dhaxeeyo Soomaali ma aragtay chat ma noqonayso chatku waa Ilaahay baan noo jeedo kulligeen haddaan ka gar daranahay soo Ilaahay haddii xataa inaan ku dhaleecay ama media soo galo ay dambi ahaan lahayd xataa Ilaahay qalbigayga waa u jeediyaa qalbigaagana waa u jeediyaa Ilaahay waa qafuur raxiim diinta lagu qaraabanayo la iska daayo dalalatun bid'atu dalalatun ya wa nahmadu wa nasta'inu alaabta lagu bilaabayo la joojiyo ma shaqayhayso reer Soomaaliya reer Afrika oo sheegay cala carso ooy filika oohinta waa gubtay haddaan caawimaad u baahan tahay xayuu soo hadal adoo xay ah saana raba igu dhacdo soo dheh waa soo ooyay waa isrogay
سيد الله أنا سرقة وهو سلرقة أما ونحمده ونستعينه صوته أما آيات القرآن سوق هذا مدعوين سوق هذا هبرتها وشيء هبرتها واقف تفرين كاسة هبرتها وشيء وايد السلامة وايد تشعل الله كر الله يدين كذا عسي شرف يقول هذا لارن فونديشن أدعو الباب وحرا تدكاس ما حدا أنا رأتها وايد تشعل الله عسي شرف يقول هذا سفرها عيسى دعية إنه إلهي ماشان سعودي نبت جايو قل صومالي وين ملك استجوبتان